ayagiina ay soo gurgurtaan oo jilbaha ku soo socdaan ilaa ay labadii waalid uga imaanayaan oo mid walbana hadhowdii labadii waalid markay shumiyaan mid walbana sodohdii labadii ay kala shuminayaan waa munkar weyn badan waay hal arin baan rab inaan baraarujiyo anoo ka faa'iideysanaya fursadan su'aal ayaan ugu badatay taasoo ah arrin bulshada dhexdeeda maalmahan ku soo badanaysa gaar ahaan marka la eego dhanka xafladaha si gaar ah loo sii eegana waa dhanka orosyada waxaa cajiib leh oo la yaab leh in qaarkood ay yiraahdaan waalidkii idin dhalay u baarinimo sameeya baarinimo maahan waa munkar iyo arrin aad iyo aad fulxumo iyo fuxshi u ah arrintan ku baraarugno waa lama huraan oo maxay tahay waa su'aasha se u dhigan tahay in labadiis aroosayday xafladii iyo goobtii arooska uu ka dhacayay ee rag iyo dumar ay wax walba dhooban yihiin ayagoo qaawan gaar ahaan gabadha tinteeday qaawan tahay intii labadii waalid ee kala dhalay la fariisiyo labadii hooyo ayagiina ay soo gurgurtaan oo jilbaha ku soo socdaan ilaa ay labadii waalid uga imaanayaan oo mid walbana hadhowdii labadii waalid markay shumiyaan mid walbana sodohdii labadii ay kala shuminayaan waa munkar weyn badan waay waana arrin khatar ah waay xaqiiqatan waxayna tusinaysaa sida bulshada Soomaaliyeed waayahan dambe waxyaabaha la soo dhoofinayo iyo munkaraadka la soo waariday ee dhan walba naga soo gelayahay ay noogu sahlan tahay oo inoo fududahay inaan qaadanno oo inaba isla markiiba hadiiba aan qaadanayno oo hadiiba la dhaqan gelinayo waa mushkilo weyn badan waay waa munkaraad dhowr ah oo iskoray haday tahay gabar cawradeedii muujinaysa haday tahay rag iyo dumar isdhex galaya haday tahay muusikada halka ka socota haday tahay in la sii sawiro oo bulshada la sii gaarsiiyo haday tahay inta waxa ka weyn oo in qof loo rukuuco jilbaha waliba loogu soo socdo aadamiya oo bashar ah arrintan noocaasiya ixtiraam waalid ma ahan waa munkar weyn badan waay waa in dadka reerka sameynaya ay la socdaan munkarka oo rabbi uga baqaan tabaaraka wa tacaala munkarka ma ahan in reer noogu asaasmayo munkarka ma ahan in reer noogu jirayo bal waa waxyaabaha ugu waaweyn oo reeraha ay la burburaan waay waxaan leenahay dalaqiya batay burburkii qoyskiya batay waxay leeyahay furiinkiya batay war dagaalkii labadiis qabay maxaa yeelay waaba aroos lagu soo aasaasay munkaraadka haday tahay markii hore la soo aasaasay shukaansi iyo waxaan wax ka jirin iyo jecel mala yacniyo la jilo iyo hadhow la is sawiro meelo kale la booqdo arooskii markii la yimidna munkarka noocaasi lagu aasaasayo waa arrin aan bogaadinayna waay maalin walba aroosya dhaca haatan mid ayaan ka nimid noocaas oo kala aroosyada ah aaday u dhacaya mar walba alxamdulillah waa khayr batay waay laakiin munkarka inaan ka digtoonaan waa waajib waay bulshay aan ka digtoonaan maxaa yeelay waxay tusinaysaa waa burbur qoys waxay tusinaysaa waa baaba waxay tusinaysaa dhaxdeena inay munkaraadka ku faafaan oo wax meel kale laga soo waariday oo meel kale laga soo dhoofiyay in dhaxdeena ay noqdaan salsabiina la iska qaato lacabo wax walbaan iska fiirino dhaqan walboona soo galayahay aan dhaqanka diinka iyo keenii soo banaayo Soomaaliyeed aan u madhigno barakallahu fiikum jazakumullahu khairan wadani productions hoyga horumarinta dacwada islaamka howl hufan iyo adeeg tayeysan